السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتو وعنا ونكون داود يلكسود وهذا الشنال كسيال كميدي وركن وين ما انتو وحاي كليين مدحوين بين وحيل كقاعدين كسمي مسؤول كترسم وزارة عاصمات كبوتلاند رئيس الوزراء إثيوبيا ودنبال كسابسن بشهر رمضان ودر المسلمين تا حتى ومحاكا عصب حالته قامية كين تشون وركا صفاتنا ياكم مقدونتان مدعي ومصلح نسيب فرمضان وعصوبة channel كن سبسكرايب نوصر سيعاد الله سعوت وركين يوربهن ينقدم بيسيا ديقو ماتسان عاتا مقصود دواد وركي وصفاتان madaxweynaha Puntland Said Abdullah Deni ayaa wareegto u soo saaray xilka kaga qaaday agaasimaha waaxda maamulka iyo maaliyadda wasaaradda caafimaadka Puntland Maxamuud Axmed Saalax Caato wareegtadan ka soo baxday xafiiska madaxweyne Deni ayaa sidoo kale agaasimaha cusub ee waaxda maamulka iyo maaliyadda wasaaradda caafimaadka lagu magacaabay Maxamed Xuseen Maxamuud Axmed Saalax Caato ayaa xilkaas ay muddo sanadii 9 bilood ah kadib markii madaxweynaha hore Puntland Cabdulle Cali Gaas uu 28 Juun 2018 magacaabay agaasimaha waaxda maamulka iyo maaliyadda wasaaradda caafimaadka Puntland madaxweyne Gaas ayaa waqtigaas xilka qaaday Xasan Sheikh Abdal oo muddo dheer ah agaasimaha waaxda maamulka iyo maaliyadda wasaaradda caafimaadka Puntland balse 28 Juun 2018 lagu wareejiyay agaasimaha waaxda maamulka iyo maaliyadda wasaaradda xanaanada xoolaha Puntland رئيس الوزراء إثيوبيا أبي أحمد أيام دنبال كساب هنبلو بس بركة رمضان ودر المسلمين تيسبوا مركوه رئيس سوقات حديثية أيضا كساروا بس بركة رمضان أبي أحمد أيام أبيها مسلم أيام الشيء إن رمضان كانوا كملي هاي أنت تير إسلام كا سبع حسين محمد صلى الله عليه وسلم وينو الشيء إن رمضان كلا حريد دمان دابل نارتا لأننا فراي دابل الشنادة شيطان كان لحري إذا كل وحاو سوقات فلي يقيرك إلا ذا هبين كلولة قدرها أبي أحمد أيام سوقات إن سنة كان بس بركة رمضان كسؤالي إلا أدون كوفد على عقب كفافي كورونا فيروس إسلام كانت شهورة بدن قليل بالشدة وحاول كباقي إلا كالفوقادو والله إسكيل عليه دعنقات كيين قرق لتشوقو مسؤولينta Kuuriyada Koonfureed ayaa ku adkeysanaya inaysan dalka Kuuriyada Waqooyi ka oogin wax dhaqdhaqaaqyo ah oo aan caadi ahayn waxayna taxadar ka muujiyeen wararka sheegaya in hogaamiyaha dalkaasi Kim Jong uu xanuunsan yahay wasiirka mideynta ee Kuuriyada Koonfureed oo ah qof ku qaabilsan la macaamilka Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegay in dowladdiisa ay leedahay awood sirdoon ah oo si kalsooni leh ugu sheegi karto inaysan ahayn wax astaamo leh oo muujinaya xaalad aan caadi ahayn oo ka jirta Kuuriyada Waqooyi wararka la xiriira xaaladda caafimaad ee hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa soo shacab baxay kadib markii uu ku guuldareystay in 18 Abriil uu ka qayb galo munaasabad muhiim ah dalkiisa hase yeeshee wasiirka mideynta ee Kuuriyada Koonfureed ayaa shaki geliyay wararka la xiriira qaliinka oo ku dooday in isbitaal xusay uusan balhayn awood uu ku sameeyo qaliin noocaas ah sidoo kale Kim Jong oo ah sargaal hore oo ka tirsan sirdoonka Kuuriyada Koonfureed haddana xubinka ah guddiga sirdoonka ee baarlamaanka ayaa sheegay inay aad u yartahay suurtagalnimada ah in Kim Jong uu xanuunsan yahay sidoo kale ilaa warado ka tirsan Kuuriyada Koonfureed ayaa u sheegay Reuters in Kim Jong uu nool yahay dhawaan uu soo noqon doono gudahan taasi ku soo gabagabeynayna wararkeena inta war caynkan oo kale aan ku doono waa aniga maslax nasiib Ramadaan Kariim sidaas iyo amaana Allah